عليكم ورحمة الله وبركاته. كفتن كي عوضة وحمد لنا مدحوين الشيخ شريف نور دم كفتن كلا كم فرنا ماشي. كاسا نهوض كفتن عوض ديالينا. دمان مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميها أقل كسرة قدوم كحين قلها شعبه مدحويني هوري الصومالية مدن الشريف شيخ أحمد مدحوينها عصوبة إلى الدورتين مدن سعيد عبد الله داني هي مدحوينة كحولينك دمان قدومك برلمانك عصوب يحملها برلمانك محوها هاي دولة قبلتك دولة بنتلاند sidoo kale ilmaha ku jira saaxiibaday madaxweynayaasha dawlad goboleedyada waxaan leeyahay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan ka gadaal caawa halkan waxaa la isugu yimid waxay ahayd hambalyo waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa dadaalka iyo wanaagga dawladda Puntland iyo dadka reer Puntland ba ay muujiyeen wax badan oo hore wax badan ayuuna daliil u yahay guushaas iyo wanaaggaas caawa meesha la isugu yimid sida loo sheegay dad badan oo Soomaali ah kuwa aan Soomaali ahaynba waa yimaadeen xigmadda ka dambeysana waxay tahay mar walba guushu waa aabayaal badan tahay marka meesha waxa ka dhacay waa guul marka qof walba guushaas inuu dhinaciisa oo muxuu ahay uga daarto oo ay kala qorxanaataa loo yimiday waa rajaynaynaa inay guulo badan oo kalena noo soo wada xigsadaan waxaan jecelahay in aanan gadaal iyo taariikhdii wax badan aanan ku noqonin oo aan mustaqbalkii waxa soo socdo laba kalmadood ka iraahdi alla yiraahdo wanaagga iyo amaanta iyo aan caawa sheegnay oo dhan haddii aanay wax nooga tarin mustaqbalka soo socdaahi amaanteena sheegisteeda macno badan kuma fadhido waxaan leeyahay waxaan ka shaqaynayna oo dib loo dhisay oo la unkayo waa dawlad Soomaaliyeed dawladnimana sideedaba shuruuc iyo qawaaniin iyo nidaam iyo dhaqan fiican oo suubsama ayay ku salaysan tahay marka waxyaabaha noo taagan aasaaska u ah muxuu ahay dadka Soomaaliyeed waxa ay ku heshiiyeen muxuu ahay oo aad halkan hadaati uu carabkiisa ku adkeeyay madaxweyne Faroole yaan xoojinaya shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim dastuurka inaan ilaalino qawaaniinta kale ee dalka u degan aan ilaalino sidaas oo kaliya ayaa guusha ku imaanay wixii lagu heshiiyay dastuurku waa qabyaa la yiri waxa noogu yaala aan ku dhaqanno wixii dastuurka aanan noogu oolinna hal la iska warsado oo hal laga wada hadlo oo seeyelna hal la yiraahdo si la yeelo lama waynayo xalaa ka soo baxayo laakiin inta dastuurka noogu taaloon ku dhaqanahay wax weyn oo guushan caawa aan halkan u wada fadhino ku naaloonayno wax kale kuma ay imaanin wixii qornaa ee lagu heshiiyay oo lagu dhaqmay oo wixii kale rabitaan ah iyo muxuu ahay cilada kale laga muxuu ahay dul qaatay ama laga adkaystay ayaa guusha caawa keentay marka mar walba madaxda Soomaalida ah ee talada haysa ee mustawa kasta leh dardaarankayga aan caawa halkan uga jeedinaa wuxuu yahay aan aad iyo aad ugu dadaalno inaan ilaalino muxuu ahay dastuurka iyo shuruucda noo degan heer federaal iyo heer muxuu ahay goboleed haday tahayba intaba aan wada dhowrno muxuu ahay kaas ayaa meel la geynayay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan sidoo kale u hambaliyeeyo una mahad celiyo saaxiibkay professor Cabdiweli Cali Gaas oo runtii meeshan wanaagga ka dhacay mas'uuliyadeedii iyo soo daraandirinteedii iyo keenisteedii lahay waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo tiimkaagii ee kula shaqeeyayba adiguna waa mahadsan yihiin hambalyaan leeyahay waana aad iyo aad u bogaadinaya intaa kadib wax badanaa garoowa laga hadlay taariikhdeedii la sheegay aniga siima dheerayn markii ugu dambeysay muddo aan aad u fogeyn 3 sano ka yar ka hor ay ugu dambeysay garoowe markaan soo degaynana garoowdii aan ogaa garoowe kale oo barbartaa loo dhisanaan soo aragnay laakiin waxa in la isweydiiyo u baahan waxay tahay dadka qaraabada ah ee garoowe degan qarniyaal la soo dhaafo dhan garoowe waa deganaa jireen iyo dhulkan sidaanna ahaa ma jirin sidaan maxay u noqotay marka garoowe waxa inaan fahmin u baahan waa midaas nidaamka dawladnimada ilaalinta shuruucda kala dambeynta is-ixtiraamka iyo dawladnimada waxa garoowe sida ay tahay ka dhigay waa dawladnimo meel walba iyo mustawa kastoo aan joognaba dawladnimada aan xoojino
taasaa wanaag iyo sharaf iyo heybad iyo karaamo ay ku imaanay mid adduunyo iyo mid aakhiraba laanna meelaanan dawla ka jirin cibaado fiican kama jiri karto isxaq dhowr badan kama jiri karo dembiye badanna waa ka jiri karaan marka aakhiradaada xataa ma samaanaysa haddii dowladnimadaadu aanay samayn marka dowladnimada aan ku dadaalno waxa guusha iyo wanaagga caawa halkan yaalla keenay waa duun inkasta oo dadka qaarkiis ay ku doodaan yiraahdeen qaangaarnimada ayaa muxuu ahay sabab u ah laakiin annaguba guud ahaan Soomaaliya 30 sano ku sii dhownahay 28 sano 2020ka aan wada hiigsanaynahay waa 30 sano marka 30 sano aan dawlad ahayn iyo 30 sano oo duruufahaas kale oo adag dagaal sokeeya dawladda ku meel gaara dawladda maxaa ahay tabar daran waa 30 sano kale maanta waxaan u baahanahay waxay tahay inaan ka fakarno oon caqligeena isugu geyno 30 sano ee ku xiga Soomaaliya noocee ah ayaan ka talinaynaa 30 sano ee soo socda Soomaaliya noocaan rabnaa inaan ka fakarno oo aan maxaan ku raadaa qorsheyno oo aan dejino waa yeeli karnaa waxaan u dhigi karnaa si inta dambayso dhammaatimaada aanay ka leexan karin 1943 13 wiil oo dhalinyaro ah aqoon nagu dhammayn xoolo nagu dhammayn maanta waxaan haysano faraha badan oo dhan aanan haysanin ayaa meel inta isugu tagtaa dhacday dawlad Soomaaliyeed oo xor ahaan rabnaa hadafkeen inaan gaarna aan rabno waa ka wadada loo marayana waa wadada halganka ah 10 sano in ka yar inta badan talada waa ka baxeen xisbigii SYL ay aasaasan xataa taladoodu kuma ayan waarin laakiin Soomaaliya dawlad ha noqoto qofka leexi karta waa la waayay qof kastoo ka dambeeyay ayaga yimiday waxay ku shaqaysay Soomaaliya sidii dawlad u noqon lahayd haddii aan qorsheyno dejinno 30 sano kadib Soomaaliya noocee ahaan rabnaa inta naga dambayso wadadaas inay maraan way ku qasboonaan doonaan si Soomaaliyada fiican oo ku riyoon karno loo gaaro 2050ka haddii la yiraahdo inta nool hadda joogtay dhalinyarada ay inta iman doonto ay ugu naalooto mar kale hambalyo dawladda iyo dadka reer Puntland guud ahaan hambalyo Soomaaliya guud ahaan waa wax guul ah reer Puntland kaliya Soomaaliya dhan ayaa ku faanayso sidaanina waa ka suurtagal Soomaalida waaye macnaheeda marka Soomaaliya dhan waa ku faanayso marka aan leeyahay hambalyo intii ka soo shaqeysay waa mahadsan tahay intii ku tartantay ku guuleysay isku dhowrtayna waa mahadsan tahay inta kalena tusaale fiican ha u noqoto mar kale aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh